هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي ولا الله صوماليات ملك ساعتشوكتان وسيد محمد عبدي وكسوغان ودن كان إنجليزكا. برنامج كيني مانت جوكتدا أها وأنا أقول لك أسبوعي أنا مرسو قلنا وأنا كنت دارينا إن مالين لك إن شاء الله وحكو حرنتها باهظة بالشدة يكو حرنتها لكن وحنربنا إن شاء الله تعالى سي أسبوع والبا أن دتك أباهظة وقبة برنامج كريبتو كارنسيجا inaan barnaamijkan kala wadaagno waxaana rabaa runtii dad badan oo waxaa jira maanta dunida meelo badan kala jooga oo aad u daneyn lahaa inay barnaamijkan ka faa'iideystaan ku saabsan crypto currency-ga laakiin dad badan maanta inay macnaha wixii waxa laga yaabaa fahansaneen anigu waxaan soo galay barnaamijkan muddo hadda laga joogo qiyaas ahaan 6 sano runtii waxaan dhihi karaa waxyaabihii igu fiicnaa oo aan ka qayb noqdo shakhsiyan yani ayay tahay nolosheeda inta noolaa ugu wanaagsan maxaan u leeyahay waxay tahay barnaamijkan horta waa revolution wax loo yaqaano waa isbedel dhaqaale oo dunida dhan ka socda meelo kala duwan baa barnaamijkan dabcan waa lagu kala xoog badan yahay inkastoo hadda qaaradda Afrika uu hadda soo gaarayo dad badan oo waxaa jira barnaamijkan markuu bilow ahaa ka qayb qaatay maanta runtii dhaqaale aan laga sheekeyn karin ka sameeyay marka anigu haddaan iska hadlo miihi qof consultant macnaha dadka kala taliya meeshii lacagtooda gelin lahaayeen qof walba isaga ayaa khiyaarkiisa meeshuu doono ku galaya marka la taliye xagga cryptocurrency qofku dhahayo soo gal ma ahi horta taa waa inaad fahantaan shirkad gaar aan kugu xayeysiinayo kuu leeyahay shirkadaasaa wanaagsan oo fiican galna ma jirto sababtoo qofku isaga ayaa choice iska leh meeshuu galayo anigu shirkado waan ku jiraa lacagaha ku darsadaa inta aanan galin company-ga waxa uu qabanayo iyo ma arkaysaa maslaxadda aniga danta igu jirtaan fiiriya meesha mustaqbal leh marka taas insha Allah waa hordhac ha ii arkin marna inaan yani ku leeyahay soo gal ama meesha wax ku darso taas waa hordhac weeyaan haddaan soo qaato company-yaashu waxyaabaha u kala baxaan kuwo waxaa jira loo yaqaana private company baa jira shirkado gaar ah shirkado waxaa jira loo yaqaano ma arkaysaa centralize oo ah shirkad dad leeyihiin la maamulo leh waxa loo yaqaan KYC systemka yani passportka iyo addresska qofka soo galaya in la yaqaan shirkadda la yaqaan shuruucda qawaaniinta yani internationalka dunida u yaala raaca iyo kuwa ayagana decentralized wax loo yaqaan oo ah kuwa aanan cidna maamulin oo macnaha de wax contracts baa jira yani oo blockchain kaas baa lagu wada shaqaystaa system kaas baa ka dhaxeeya dadka waana runtii mowduuc u baahan inaad haddaad danaynayso macnaha inaad baarto waxa la yiraahdo decentralized blockchain iyo decentralized company waxaa ka mid ah sida haddaan soo qaato bitcoin iyo ethereum ka mid ah kuwa centralized marka la yiraahdo waa shirkadaha dadka leeyihiin sida waxaa ka mid ah one life one coin oo Soomaalidu in badan ay soo gashay meelo kala duwan joogta caalamka saad ogtihiin dhihi karno waa meeshii Soomaaliya dhan indhaha ay runtii ku furatay kadibna shirkado la mid ah jira marka oo kala duwan oo hadda kuwa soo baxay iyo kuwa kale shirkaduhu qaar waa kuwa jooga suuqa oo lacagtooda la sarrifo iyo kuwa aan suuqa joogin oo private ah wali oo macnaha dadkii iska lahaa iyo nidaam iyagu u gaar ah bay ku maamulaan qasabna ma shirkad walba inay suuqa tagto shirkadda doonaysa suuqa tagtaa tii dhaqaale ahaan doonaynin inay suuqa tagto sideeda private-keeda hoosh ku wadatana waxay la mid yihiin shirkadaha hadda Soomaaliya ka jira sida Hormuud iyo dahabshiil iyagu suuq international ma joogaan lacagtooda cid walba ma gadato laakiin service bay bixiyaan oo macnaha lacagtii aad haysatay baad wax ku diranaysaa commission bay shirkadda ka qaadanaysaa alaab hadda doonayso inaad ku gadato sidoo kalena waa lagu kala gataa waxa lagu kala gataa marka taas waa shirkadaha caadiga ah oo private ka ah oo aan suuq joogin laakiin markay noqoto shirkadaha suuqa jooga waxa kamid ah sida hadda bitcoin baa kamid ah ethereum baa kamid ah suuqi bay joogaan waxa jira exchange baa jira marka shirkadii markay suuqa joogto anigoo kala sayida baa waxaan leeyahay maanta waxaan haystaa midaan 10 bitcoin halkii bitcoin wuxuu joogaa markaas qiimuhu joogay ku xiran tahay 30,000 50,000 60,000 intuu doono markaas ayuu joogi karaa markaas lacagteedii qaado waxaan iska qorayaa exchange ama service meeshii wax lagu kala bedelanayay waxay kugu bedelayaan markaas qiimihii markaas uu joogo iyada marka waxa ay ku wanaagsan tahay waxa weeye marka wixii soo gashato lacag ku fuusho lacagteeda baad kala baxaysaa laakiin waa volatile wax la yiraahdo volatility-ga wuxuu yahay maanta waxa laga yaabaa shilinkii inaad ku gadato $30,000 tusaalan ku siinaya biriba marka waxaad ku sii iibinaysaa isagoo jooga 60,000 waa 2 isbuuc 3 isbuuc bil buu ku noqon karaa dad baa jira marka
anigu xilligan soo galay boqolaal buu ahaa 200 300 buu ahaa maanta 30,000 ilaa 60,000 70,000 buu gaaray maxay ku dhacday waxay ku dhacday waa dadka badan ee meelaha kala duwan dunida jooga ee isticmaalaya shirkadaas kuwa kala jira marka oo lamid ah oo iyaguna ma arkaysaa suuqi jooga oo qaarkood 10 sent ku bilowday qaar $1 ku bilowday qaar $10 ku bilowday maanta dhowr boqol bay joogaan marka iyaguna waxa la sameeyaa lacagtu markay yar tahay baa la gashtaa shirkadda lacagta lagu darsadaa markay kuu badato ama qiimihiisa kor u kaco ayaa dib loo sii iibiyaa dadku waa laba nooc kuwana lacagta way gashtaan oo waqti gooban markay ku jiraan bay sii bedelaan oo dadka trade-ka ku sameeyay way hadda gadanayaan in yar markay hayaan way ka sii baxayaan shirkado kale oo fursado ka jira bay sii gashtaan si lacagtoodii ama capitalkoodii ama volume-koodii u bato kuwana waa private weeyaan shirkadda haddaad doonayso maalan dad ganacsiga ku jira haddaad doonayso inaad shaqaysato ood wax iibiso ood bulsho badan hesho website-yada shirkadahan sida One Life oo kale ay dadku waxay ku qoraan website-kooda wax lagu kala gato sida deal shaker-ka markay website-ka deal shaker-ka galaan alaabtoodii ay keenaan waxa fursad ku siinaysaa dad meelo kala duwan jooga dunida oo dhan inaad hesho oo ma arkaysaa markaasna aad ma arkaysaa wixii aad haysatay alaabta waddanka doontaba ha noqoto macaamiil badan inaad hesho haddana meesha waxaa ku jira shilinka shirkadda laftirkiisu mar dadkii ganacsadihii bato dadkii wax ku kala gadanaya bataan shirkadda maadaama ay tahay shirkad private oo suuqa joogin sida shirkadaha kale waxay ku siinaysaa marka inaad macaamiil badan hesho waxay noqon kartaa qof maalan cameraman bay noqon kartaa qof warada sameeya photographer-ka sameeya bay noqon kartaa waxaad soo gelinaysaa maalan shaqadaadii waxaad leedahay anigoo ah hebel ganacsigaas haysta boqolkiiba 50 waxaan ku qaadanayaa shirkadda lacagteeda boqolkii 50 kalena waxaan ku qaadanayaa waxaad dhihi kartaa cash marka qofkiiba toos kuula soo xiriiraya sidaas baad marka shaqadii isku dhaafsanaysaan adiga boqolkiiba 50 hadaad cash ku hesho faa'iido ayaad qabtaa marka ujeedku waa ka daninkii raba inuu suuqa tago oo wixiisa maanta intuu geliyo maaragtay maalan 1,000 ama 2,000 wixii tabartiisa ah isaga yaqaan berritooda markay 3,000 kugu darsato mise 5,000 kale kugu darsanto ama haddaad sii sugto oo nasiibkaaga kuu noqoto sida shirkadaha waaweyn aan aragnay shirkaddii maalan $10 ku bilaabatay maanta hadduu shilinkeedu 200 marayo intee percentage bay kor kugu kacday waxa weeyaan 19 jeer bay lacagtaadii kor kugu kortay markaas baad haddaad doonto marka lacagtaadii kala sii baxaysaa laakiin fursad oo jirta oo u baahan fahan weeyaan dadku marka waa laba nooc dadna waa dad wax raba inay bartaan wax fahmaan kadibna naftooda markay wax u fahmaan dadka kale walaalahooda ama ehelkooda ah fikraddii la sii wadaaga dadna waa dad ma arkaysaa raba inay meesha ka taajiraan barnaamijkan anigu ma arko inaad maalin ku taajirayso mise 3 maalmood waa wax muddo yani soo socday weeyaan marka hadaad leedahay adkaysi ood leedahay muxuu ahaa fikir fog yani qof arki kara meesha dunida ama mustaqbalku u socdo fursadahan dhan way ku furan yihiin marka way furan tahay inaad maaragtay waxna ku dhax barato sidoo kalena shirkadihii aad la jaan qaado kulli hadda cryptocurrency-ga barnaamijyadan waxa loo qaabilay waxa loo yaqaan asset waxa weeyaan ma aha lacag ahaan in loo aqbalay laakiin waxa loo aqbalay wadamada Yurub iyo qaarada Mareykanka oo kale iyo waxa loo yaqaan asset waxa la mid tahay dahabka iyo waxay la mid tahay ma arkaysaa sida waxyaabaha la midka ah oilka oo kale baa loo kala gataa marka si sharci baa suuqi loo keenay shirkadihii anigii haddaan doonay maanta intaan shirkaddan doono intaan ku bedesho maaragtay 2,000 ama 100 wixii marka aan awoodo baad gelinaysaa waad iska haysanaysaa shirkaddii inta qiimaheedii waxay ku xirantahay dadkii ka baranayaan suuqeedii kor noqonayo markaasaad marka dib uga baxaysaa dad badan waxaa jira hadda celebrity ah ama dad ma arkaysaa hantiliyaal sida hadda Tesla ninka sameeyay oo kale ma arkaysaa uu qayb buu ka noqday lacag badan buu ku darsaday maanta faa'iido badanna wuu ka helay dad badan waxaa jira maanta shirkadaha soo galay markay maaragtay bilowga ahaayeen xilliyada anaga bilownay marba de wixii ka go'a adigu ha ku darin wax oo aad u baahan tahay wixii karabta ka galay waa in noqoto wax ka go'a oo ka maaranto marka wuxuu sameeyay qofkii weekends markuu shaqeeyo 100 ama 200 ama 500 ayuu ku darsanay markuu lacagtii ku darsado maxaa dhacaysa marka lacagtii value-geedii baa kor noqonaysa sababta shirkadda marka aad galayso waxa laga yaabaa inay ka horeyso 100 qof ama 10 qof kadibna ay malaayiin qof soo gashay marka qofkii ugu horeeyay boss buu xirtay shilinkiisa waxa laga yaabaa shirkaddaas capitalkeeda ama market capkeeda inuu ahaa مثلا 300,000 mise 2 milyan
marka shirkadda haddii 2 milyan tahay adiga aad qayb ka noqoto laakiin uu shirkadda capitalkeedu noqdo 2 bilyan waxaad ka qayb noqotay fursaddii bilowgeedii baad soo gashay hadhow marka lacagtaas qiimaheedu uu kor u kaco baad sidaas faa'iido ku helaysaa laakiin hadda مثلا bitcoin ninkii soo galay oo kale capitalkeeda markuu ahaa 1 bilyan مثلا marka aad soo gashay maanta waxay maraysaa 1 trilyan bay gaartay ku dhawaad markuu 60 kun gaaray shilinkeeda marka aad adigoo qayb ka ahayd 1 bilyan iyo 1 trilyan waa 999 bilyan oo bilyan lagu daray ayaa trilyan samaysaa marka intee in la eg buu percentage-ka shirkadaasi uu kor u kacay marka dadku waxay fiiriyaan in badan oo sida hadda anigoo kale waan ku dhex jiraa aad baan u aaminay waqti waan geliyey qarashna waan geliyey runtii shirkadda waxaad fiirinaysaa capitalkeeda lacagta ay haysato inta ay la eg tahay iyo fursad intee la eg baa u furan inay sii kororto macnaha dhaqaale ahaan markaas baad maaragtay dhihi arki kartaa iyo waxa ay qabanayso shirkadaad fiirinaysaa shirkaddu ma tahay shirkad hadaf leh doonaysa inay ma arkaysaa wax loo baahan yahay suuqa looga baahan yahay inay keento hadday shirkaddu marka baahidii dadkana daboolayso lacagtii ay markaas joogto ay tahay capitalkeeduna lacag yar waxaad ogaataa shirkaddu ilaa iyo trilyan inay socon karto growgeeda maadaama shirkaddii ugu horreysay ay samaysay bitcoin ethereum hadda jirto iyaduna 250 bilyan ah ilaa 300 bilyan yani capital ahaan shirkaduhu waa balaaranayaan waxaa la qiyaasayaa inay shirkadahaasi hadda suuragal tahay inay iyagoo laftirkooda trilyan gaaraan haddaad doonay shirkadaha private-ka iyaguna waa jiraan marka qof walba insha allah isku day inaad meeshaan aqoontaada aad ka faa'iidaysato wixii kaa go'a aad gashato adigu se aadan noqon yani inaad tiraahdo mar walba wixii aan gelayay haddaan waxba lama harayo xoogaa taasi waa degdeg weeye wax la kala har wax kaa go'a geli aniguna advisor ma nihin oo kuma dhahayno meeshaas iyo meeshaas gasho laakiin wixii waqtigaaga iyo baaritaankaaga kuu gaarka ah waa inaad samaysato haddii jiraan dad kula taliya ama la taliyaal aad leedahay dhinaca kaa caawin kara la tasho ayagana sidoo kale dhaqaalaha insha allah laakiin ballanteenu waxa weeyaan insha allah qof kastoo meel kastoo aad joogto inaad indhahaaga furto aadan dhihin noqon waxa la yiraahdo negative waxa inaadan noqon too much yani wixii dhan aadan isku dhiibin 100% waxaan waa lagu faa'iidi karaa qasaarana waa ka imaan karaa sidoo kale waa wax bini aadan sameeyay laakiin markaad fiiriso bigger picture waxa la yiraahdo yani sawirka weyn ee guud waxaan hadda ay bilow tahay anay aaminsanahay wixii hore waxay ahayd dowlatus iyo wax bilbilowba ahayd laakiin hadda ayaa waxaa soo baxay wax la yiraahdo NFT oo gaming ku saabsan altcoins waxa la yiraahdo oo cryptocurrency kala duwan ah private company-yaasha sida ma arkaysaa hadda company-gan One Life oo kala ah marka fursaduhu waa badan yihiin meeshii markaa ku anfacda ku cajabisa baad ka soo galaysaa laakiin barnaamijkan anaga aan duubeyno waxaan ugu talagalnay kaliya education purpose inaad wax ka faa'iidaysato waxna ka barato ujeedku waa ka laakiin adaan insha Allah go'aankaaga iyo baaritaankaaga gaarka gali doona waa inoo kulanka dambe iyo isbuuca soo socda barnaamijkan haddaad daawanayso subscribe ka saar ha iloobin like ka saar sidoo kale beelkana taabo si markastoo barnaamijkan aan u soo gelino YouTube-ka aad u noqoto qofka ugu horeeya ee arki doona barnaamijyo badan oo xiiso badan baa soo socon doona ugu khibraduna wax muhiim ah weeyaan sababtoo maanta qof kastoo aad daawanayso khibradiisa iyo waxa uu ku dhex jiro inaad maaragtay wax badan ka faa'iideyso taas baa ku waan kartaa anigu kulay 6 sano baan ku dhex jiraa hawshan shakhsiyanna waxaan aaminsanahay inay jiraan maaragtay dad badan oo Soomaaliyeed aqoon badan leh fikrado kala duwan haysta laakiin u baahan in loo bidhaamiyo meesha ay wax jiraan iyagana wax badan laga sii baran doono insha Allah anagu laftirkeena aan idin ka baran doono marka waxaan idin leenahay kulan wanaagsan waa inoo isbuuca dambe iyo barnaamijkan mid lamid insha Allah inaad heli doontaan ama ka sii xiiso badan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh